السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبة قيمها بدن كسو دوادا جول 24 waxaa halkan idinku soo gudbin doona wararkii wixii sahbana ay sheekooyinkeena ciyaaraha fadlan hadii channelkan aad ku cusub tahay subscribe gamaleerkan riix si aad u noqoto mar walba saaxiibka ay soo gaareen fariimaha ugu dambeeyay ciyaaraha waa mar kale iyo goal 24 ciidan kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain Andre Herrera ayaa guud ahaanba sheegay inuusan diyaar u ahayn kulaabashada horyaalka wadankaas Ingiriiska ee Premier League kadib markii ay soo baxeen warar hoosaad oo sheegaya in ciidankani uu dib ugu soo laaban karo Premier League xilli Paris Saint-Germain ay doonayso in wada hadalada xidiga kooxda kubadda cagta Tottenham Ndombele ay soo gabagabeen doonaan laacibkani qadka dhexe reer Spain ee Andre Herrera ayaa markaa yiri waxaan xishmeen doonaa kooxdeeda hore ee Manchester United haddii aan dib ugu laaban karana horyaalka Premier League waa inaan ku biiraa kooxda Manchester United maxaa yeelay ma doonaya inaan ka hor imaado kooxda kubadda cagta Man United ayaa laga soo xigtay Andre Herrera isagoo tixgelin xooggan siinaya iyo xishmadba kooxdiisa hore ee Manchester United runtii way ugu adag tahay inaan ka hor imaado kooxda kubadda cagta ee Manchester United anigoo ka tirsan mid kamid ah kooxaha ka dhisan Premier League maadaama ololaha kooxda PSG ay wada ay tahay in Andre Herrera loo gacan geliyo kooxda Tottenham Hotspur halka Ndombele uu yimaado kooxda Paris Saint-Germain kooxda reer Talyaani AC Milan ayaa dhinac kala doonaysa inay si amaah kula soo wareegaan ciidanka kooxda Arsenal ee Aubameyang kadib markii waryaankan u dhashay wadankaasi Gabon ay markaa isku dhaceen tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta sidaas darteeda waxaa la leeyahay nacab aad u fara badan ayay isku qabaan labada dhinac Arteta iyo Aubameyang kaliya kooxda reer Talyaani waxay doonaysaa inay arintaasi ay ka faa'iideysato maadaama Arsenal inta badan ay xaqiijisay inta uu furiyaan suuqa ciiraankani Aubameyang inuu isaga dhaqaaqi doono gegida Emirates xilli kooxda kubadda cagta AC Milan ay ka dhaawacay yihiin labada ciyaaryahan Oliver Giroud iyo Zlatan Ibrahimovic waxaana kooxda kubadda cagta AC Milan ay bilaabaysaa qorshe ku aadan inay inta ka harsan xil ciyaareedkan ay amaahi ku doonayso laacibkaasi reer Gabon ee Aubameyang ciidanka ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund Erling Haaland ayaa doonaya in kooxdiisa uu ku sii sugnaado waxaana laacibkani u dhashay wadankaasi Norway uu markaa uu tilmaamay in cadaadis xooggan uu kala kulmayo maamulka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund oo doonaya in laacibkani guud ahaanba uu ka dhaqaaqo horyaalka wadankaasi Germany maadaama ciidankani ay dhaqaale aad u fara badan ay ku baadigoobayaan qaar kamid ah kooxaha kala duwan ee ka dhisan tartamada qaaradda Yurub sida Manchester City, Man United, Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona dhamaan kooxahaasi ayaa u taagan inay la wareegaan saxiixa ciidankaasi Erling Haaland daayirkan ka tirsan kooxda Borussia Dortmund ayaa doonaya inuu kooxdiisa waqti wacan ula sii qaato xil ciyaareedka soo socda ciidankan ayaa heshiiskiisa lagu burburin karaa adduun cageed gaaraya 64 milyan oo lacagta banka sida wararka qaar warbaahinta wadankaasi Germany ay hadal hayaan saaka waxa ay tilmaamayaanba in ciidankani uu doonayo in kooxda uu waqti ula sii qaato halka Borussia Dortmund doonaysa in dhaqaalaha lagu baadigoobayo ciidankaasi ay ka faa'iideystaan Real Madrid waxay doonaysaa in guud ahaanba ay salka dhulka u dhigto ciidanka Karim Benzema kadib markii maalmihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen warar ku aadan in Karim Benzema uu ka dhaqaaqi doono istaadiga kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Santiago Bernabeu laacibkan reer France ayaa hore ugu dhawaaqay haddii garoonka Santiago Bernabeu ay yimaadaan xidigaha kale ah Haaland iyo Kylian Mbappe in guud ahaanba uu macasalaameyn doono sidaas darteeda ciidankani Karim Benzema ayaa dhawaan dalab ka soo gaaray kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka liiga wadankaasi Faransiiska madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez ayaa markaa doonaya in ciidankani uu ku sii hakiyo waqti kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xitaa haddii ay garoonka ka soo degtaan xidigaha kale ah Kylian Mbappe iyo Erling Haaland maxay tahay qorshaha kooxda kubadda cagta Liverpool ay doonayso inay ugu dhaqaaqaan dalabka ciidanka weerarka kooxda Juventus ee Paulo Dybala sheekooyin la yaab leh ayaa ka soo baxaya dalabka Liverpool ee ku aadan xidiga Dybala ciidanka u dhashay dalkaasi Argentine ayaa ka cagijiidaya in waqti kale uu la sii qaato kooxda kubadda cagta AC Milan kadib qorshihii ka dhaxeeyay oo guud ahaanba baaba'ay sidaas darteeda kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa loo maleynayaa in ciidankaasi Paulo Dybala ay ka soo bixi doonaan horyaalka seerada wadankaasi Talyaaniga 28 jirkani ayaa kaliya waxa kaga harsan heshiiskiisa muddo 6 bilood waxaana wararka
waxaana wararka qaarkood ay tilmaamayaanba in ciyaaryahankani ay suurtagal noqon karto inuu usoo dhaqaaqi doono horyaalka wadankaasi ingiriiska Premier League oo sidoo kale uu dalab ka soo gaaray sida Manchester City iyo Man United. Liverpool ayaa hadda qorsheynaysa in ciyaaryahankaasi ay u dhaqaaqi karaan haddii suurtagal ay noqon karto Paulo Dybala inay geeyaan Stadia Anfield xilli la doonayo in ciyaaryahankaasi uu bedel u noqdo wiilka reer Brazil Roberto Firmino oo la filayo inuu isaga dhaqaaqi doono xilli ciyaareedkani kooxda kubadda cagta ee Liverpool. qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi ingiriiska ayaa dhinaca kale waxa ay doonayaan inay la soo wareegaan xidiga ku gaamuray mustaqbalka garoonka Allianz Arena ee Thomas Muller. 33 jirkani ayaa mustaqbal weyn ba ku leh kooxda kubadda cagta Bayern Munich, waxaana loo maleynayaa in ciyaaryahankan uu ka soo dhaqaaqi doono garoonka kooxdaasi kadib markii la sheegay in ciyaaryahankani Thomas Muller uu aad u xiiseynayo inuu ka ciyaaro horyaalka wadankaasi ingiriiska ee Premier League. Bayern Munich ayaa doonaysa isbedelo ku aadan inay ku sameyso qaar ka mid ah xidigaha waqtiga dheer ku qaatay garoonka Allianz Arena, laakiin kooxahan Premier League ka dhisan ayaa loo maleynayaa inay heli karaan saxiixa laacibkaasi sida Newcastle United iyo Everton. wararka ugu dambeeya ayaa sheegaya in tababaraha kooxda kubadda cagta Everton uu doonayo ciyaaryahankaasi inuu marka hore ka dhaadhiciyo suurtagalnimada imaanshihiisa horyaalka wadankaasi ingiriiska ka hor inta uusan xirmin suuqa. Iyo kooxda kubadda cagta Everton doonaysa inay ku garaacaan saxiixa ciyaaryahankaasi Thomas Muller kooxda Premier League ay ku xifaaltamaan ee Newcastle United. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa loo maleynayaa inay mar kale dib ugu soo laaban karaan saxiixa ku aadan xidiga Declan Rice. laacibkani qadka dhexe kooxda kubadda cagta West Ham United ayaa markaa la tilmaamayaa inuu suurtagal noqon karto inuu ka dhaqaaqo xil ciyaareedkani kooxdiisa kadib markii kooxda kubadda cagta West Ham United ay sheegtay inay u baahan tahay qiimihii horey ciyaaryahankani ay suuqa u dhigtay. saasi darteeda Manchester United ayaa bixin karta adduun dhan 100 milyan oo lacagta bank oo dollar u dhiganta 134 milyan. waxaa la leeyahay haddii Manchester United ay markaa suurtagal aysan ka dhigin in qiimaha 100 milyan ay kula soo wareegaan xidigaasi Declan Rice inay markaa u wacan karaan dalabka kale ku aadan ciyaaryahanka Bellingham oo isna markaa u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund, laakiin waxa uu noqonayaa xidigan Declan Rice dooqoodii koowaad maxaa yeelay waxaa madaxa sportiga kooxda kubadda cagta Manchester United uu aaminsan yahay in ciyaaryahankani uu waxtarkiisu aad u sareeyo, waana u qalmaa in qiimahaasi kooxda kubadda cagta Manchester United ay kula soo wareegi karto xilli United-ka ay qorsheynayso in arintani ay soo gabagabeyn doonaan toddobaadka foodo ugu soo haysa. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku soo laabanaysa dalabka ku aadan xidiga Adama Traore kaasi oo ka dhex muuqanaya horyaalka wadankaasi ingiriiska, waxaana maalmihii ugu dambeeyay ciyaaryahankani uu qarka u saarnaa ku biirista kooxda kubadda cagta Isbariska, laakiin kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa doonaysa inay Isbariska ku garaacaan dalabka xidigaasi Traore, waxaana warbaahinta Spain ay shaacinaysaa in Barcelona ay doonayso ciyaaryahankaasi inay kasoo ambabixiyaan kooxdiisa Wolves kadib markii Wolves ay sheegtay ciyaareedkan in ciyaaryahankaasi iska iibin doonaan. Barcelona waxay doonaysaa inay mar kale dib ugu soo celiyaan istaadiyaha kooxda Barca maadaama ciyaaryahankan uu ka mid ahaa dhalinyaradii da'da yaraa ee mustaqbal ahaan soo maray kooxda kubadda cagta Barcelona. natiijo walba ciyaaryahankani Adam ayaa aad marka u doonayo ku sugnaanshaha horyaalka wadankaasi ingiriiska ee Premier League. intaas ayaan ku soo afmeeraynaa wararkeeni ciyaaraha oo aad kala socoteen Goal 24 tan iyo wararka xiga sida iyo nabadgelyo.